ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay. dadka Soomaaliyeed dhiigooda ay bixiyaan maadaama dhiigu iyo noloshu wax qiimo badan ay yihiin. shabaabna meeshaas inay dadka ka xanuujiyaan oo dadka boqol u dilaan abriya waxba galabsan suuqa joog xamaalanaya safraya jidka maraya waayo waxa ay dilayaan dhiiranaan kuma dhama inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan ee kacay meel kasta oo laga eriyay ceelka biyaha ku yeelay ayay mabada ka siisatay. maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen. maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey. kuwii hore laga soo eriyeyna sidaasay yeeleen oo aan mithaal soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanina siday yeeli doonaan. meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan. qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha dibaa loo kicinaya. walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tegey taariikh waa tegey soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tageen ilaahay idinkiisa. cajis gelin waay markaa ma soo noqonayaan waa soo noqonayaan iyo cabsi gelin iyo cajis gelin waay. dadka Soomaaliyeedoo walaalayaal nooma noqoto nooma dhamma iyo waa diidna iyo nooma noqoto horey aan u socono. Soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto xaalad ay isxoreynayso oo gobonnimadii sovereigntigeedii ay soo ceshanaysa ku jirtaa. xaaladaasi waxbay naga mudan tahay. waxaan leeyahay dagaalka shabaab kula jiro dadka Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo ugu baaqaya inay taageeraan bannaanka u soo istaagaan hiila qarsoon hiila maaha horeyaa loo yiri Soomaalida kuma maalin bannaanka la soo istaag maalintaa dhimanay ka hor dhiman maysid haddii aan yidhaah. dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ha diyaar garoobaano sida shabaab ugu kacnay oon ugu diyaar garownay shabaab kadib sidaan u dhisa lahayn dalkan aan u diyaar garownay. shabaab waa tegey.